الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران أول خصمين يوم القيامة جاران الحديث الثامن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابته أول خصمين يوم القيامة جاران الحديث الثامن حديث كسديدات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري نحريس اللي ودليه كركس الله يرسل بنيه النبي محمد من دل قفك تصا على خير فلو حاصبنا ذي مثل أجر فاعله كان خير كلا تسوي سمية وكلا أجر كسمية هذا الخير تسددك قفك خير كتسي أنتو خير كسمينا أما خير كأوسمينا أجر كهلا أو كلا تيلي سالي من دل على خير قفك خير تسا فلو حاصبنا ذي مثل أجر فاعله أجر قفك سمينا أو كلا لم يدعو أيها لا مثلا waxaan kuu sheegay wixii samaysay ajirkaada heshay anigana waan helaa sheegmada aan kuu sheegay ama aan ku tusiyay sababteeda ajir ku helaa wuxuu kale leeyahay rasuul sallallahu alayhi wasallam man ahaqqu an-nas nin saxaabi horeystay marka nabiga ayuu su'aalay man ahaqqu an-nas dadka yaa igu xaq badan bixusni saxaabati saaxiibtinimada
yaan waqti la qaataan dadkii yaa ugu xaq badan oo aan waqti la qaato waqti siiyaa nabiga sal slam wuxuu leeyahay ummuka hooyada haddaad rabtid inaad waqti qaadatid oo qof waqtiga aad la qaadatid aad doonaysid hooyadaa waqti la qaado markaasuu weydiiyey qaala thumma man hooyo yaa ku xigta yaan kaloo waqti la qaataa haddana nabiga wuxuu ku celi ummuka hooyadaa hooyadaa waqti haddana waqti la qaado haddana wuxuu dhahay qaala thumma man kadib hooyadaa ku xig yaan saaxiib kaloo la noqda waqti la qaataa qaala ummuka hooyada marka hadalka rasuul sal slam ciyaar maaha wax yar maa miisaan weyn buu saaray marba hadduu rasuulku yidhi haddaad doonaysid in waqtigaaga aada la qaadato qof aad doonaysid adduunka saaran la qaado hooyo hooyo saaxiib ka dhigo hooyo asxaab ka dhigo hooyo la sheekay ka warhaay baari u noqo agteeda fadhi ha ka dheeraanin ha dhibin ayada waqtigaaga sii markaasuu ugu dambeeyey wuxuu yidhi qaala thumma man yaa ku xig qaala abuuka aabbahayo markaa waqti la qaado aabba waxaa la siiyey qeybta afraad sababta hooyo 3 jeer nabiga sal slam uu soo celiyey wax kale ma aha iyada uurkeedaad galaysaa way walacaysaa marka hore uurkeedaad galaysaa 9 bilood bay caloosh kugu haysaa way ku dhashay way ku nuujisay way ku korinaysaa ilaa aad ka gaarto 20 sano aabba laakiin intaa maha aabba waxbaa soo shaqaynayaa asaga xaqa buu leeyahay sababto asagaas sababtiisa ku imaaday laakiin haddana waxa ka xaq badan hooyaa ka xaq badan hooya dhibkay kula marayso aabba kula marayo hooyo naasay ku siinaysaa way ku nuujinaysaa caloosheeda ku jirta aabba intaas ma hayo marka hooyo haddaad janna rabtid hooyo baaro u noqon